Okay, soo dhawaada insha Allah. Maanta waa casharkii ugu dambeeyey ee React waaye. So isbuuca 14 ugu dambeeyo isbuuc 15 waa project waaye. Waa project buildan waaye. Oo team la iskula shaqeynayo. Marka maanta ugu dambeyso isbuucana ugu dambeeyo casharka. Laakiin casharka cashar fudud maaha, waxyaalo badan ku jiro. Wixii aad soo barateen oo dhan la isku geynayaa. kadibna waa insha Allah arkaynaa si u shaqeyso. So maanta waxaan baranaynaa authentication iyo sida loo sameeyo private routes waxay dhahaan. Marka waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye applicationka marka qofka soo galo. Hadda camal waxaan ku jiraa student portalka halkan. Student portalka haddaan ka baxo inta haddaan ku jiro hadda cid fiirin karta ma jirto casharadii. Haddaa saan tahay oodan log in lahayn ma fiirin kartid. taas waxaa marka waa authentication alla authentication ka hadlayno waxaa marka waa sign upka iyo loginka waxaan ka hadlayno. So authentication ka sameynayna maanta si uu u shaqeeyo. Private routesna waxaa waaye kaba soo hadda camal halkan saa ujeedaan waxaan ku jirnaa /student/week 14/lesson. haddaan copy garayno on log out dhahno kadibna isku dayno inaan tagno kaas oo same link aan isku dayno inaan tagno wuxuu nagu soo celinaya loginkii soo jeedid. Of course application-kan ma ahan React ma aha, laakiin waa same concept waaye. So same concept basically waxa waaye qofku markii uunan haysanin authorization ama authentication, labadaas eray way kala duwan yihiin, waana ka hadli doonaa hadda in a minute. laakiin authentication macnaha hadduuna haysanin ogolaansho loo ogol yahay inuu soo galo meel, waxaa ka xiraysaa meelaha uu isku dayay inuu galo. meelaha private-ka ama URL-ka private-ka ka xiraysa. So taasaan baranaynaa maanta. waxaana ku dul dhisaynaa application-ka hore sameynaynay oo aad hore u barateen oo ahaa application books-ka. waxaan baranaynaa maanta marka waxaan fahmaynaa sida SPA waxa waaye waa sida waxa waaye waa single page application oo sida React camal iyo Vue iyo kuwaas single page application la dhahaa. frameworks ka front-endiga sida oo la shaqeeyaan authentication ama ogolaanshaha qofka la ogolaanayo. waxaan set up gareyn doonaa ama isku dubridi doonaa authentication-ka. waxaana ku xiri doonaa sliceski ama RTK query-gan ku xiranaa. waxaan sameynaynaa login iyo sign up ama registration iyo login forms aan sameynaynaa. waxaan u ogolaanaynaa qofka inuu account sameysto. waxaan kaloo ogolaanaynaa qofka inuu login sameeyo. kadib markuu login sameeyana uu arki karo waxyaalo gooni ah. hadduuna login sameynin uunan la ogolaaninna una arki karin waxyaalahaas. hadduu isku daya xataa uunan geli karin. waxaan fiirinaynaa qofka inuu leeyahay wax la cookie-gaas waxaa habka aan ku ogaanayno inuu qofka uu la ogol yahay inuu wax arkay in la ogolayn. waxaana fiirinaynaa insha Allah cookie-ga sida aad macnaa u maamuli kartid, u kaydin kartid meel si qofka uu ugu jiro application. For example camal hadda application-kana ku jira meel kale haddaan aado okay waaye. haddaan xira xataa soo furo iska okay waaye. browser-ka haddaan iska xiro soo furo weli waan geli karaa application-kii. laakiin haddaa meelaha qaarkood ku xaraysid authentication-kaada for example camal local waxaa jira waxa la local host ama local storage. local storage-ka haddaa ku xaraysid wixii local storage-kan ku jiro markaa browser-ka xirto ku tag waa tageen. laakiin cookie-gan halkan saa ujeedid wixii aad geliso way ku jiraan browser-ka ilaa waqti expire noqdaan. waqti gooniga jiro expire noqonaan. saa ujeedid cookie-ga halkan wuxuu leeyahay expire time, uu leeyahay expire date. expire-ka waxaa soo maamulayo back-endiga. adig ma maamulaysa expire-kan. waxaa soo hagaajinaysa soo dubrida waqtiga uu ka expire noqonayo back-endiga. kaasna already waa idiin hagaajiyay. so kama ululaysaan qaybta back-endiga maanta. okay, so waxaasaan baranaynaa maanta. aan isla fiirino waxay kula duwan yihiin authentication authorization. authentication waxa waaye waa login-ka. waa qofka in uu leeyahay email iyo password ama username iyo password markuu soo galo. so kaas waxa waaye ogolaanshaha qofka inuu meel soo galo waaye. authorization waxa waa qofka meeshuu soo galay laakiin website-ku soo galay laakiin qofka ma user caadi aha ma admin ba ma author muxuu yahay qofka. so authorization laba isku eg waaye, laakiin authorization waxa waa qofka noocuu yahay waaye. authentication waxa waaye qofka in loo ogolaado inuu soo galo marka ugu horeyso. badanaa example waxaan ka siiyaa for example meel waxaa soo gashay dhismo lagu sameynayo
event عمل أما wax lagu sameynayo xaflad camal dhismahaas albaabkiisa hore waxaa jooga qof askari ah oo ku ilaalinayo oo ku dhahayo marka hore horta ma lagu ogolaado inaad meeshan soo gasho okay itus ID-gaada tus ID-gaa tusaysaa wuxuu ku leeyahay okay listigan kaa fiirinaya listiga ku jirta listigu kaa fiirinaya kabacdi wuxuu ku leeyahay okay lagu ogoliya go ahead markaad gasho buildingkii qolkas iskama geli kartid kaba soo qaad xataa ardayda taadi waxa lagu ogoliyaa qolalka ardayda geli karaan bas lagu ogoliyaa taas waxa la authorization haddaad tahay qof oo speaker camal haddaad tahay oo event ka hadlaysid waxa lagu ogoliyaa qolalka speakerska galaan ama backstage-ka or whatever you know so saasay kula duwan just example ahaan saasaan badanaa dadku siiyaan okay so waa fahna marka authorization authentication isku mid ahayn qasama inaad tan fahanto hadda casharkaada qasab maaha muhiimadda waxaa just inaad og tahay labadan ay kala duwan yihiin waxaa baran doontaa si fiican markii backendingaan baranayna insha allah okay so maanta maxaan sameynaynaa marka so maanta waxaan sameynaynaa applicationkanagii example ahaan waatana waxaan u sameynaynaa kor waxay leedahay navigationkii leedahay caadiga ahaa bookska inta ku qoran laakiin waxaan ku daraynaa login aan ku daraynaa iyo registration waxaan soo gaabinaya RE aan ku daraynaa so qofka bugaagta uu arki karaa so no problem they can see the bookski laakiin waxba kama bedeli karaan book cusub kuma dari karaan waxba kama bedeli karaan ilaa ay login sameeyaan ama registration sameeyaan qofku markuu register dhaha markaas kadib wuxuu imaanayaa registration page-ku imaanaya of course waxaan ka qaadaynaa form aan u sameynayna halkan the usual stuff magaciisa emailkiisa iyo passwordkiisaan ka qaadanaa registrationka markuu register gareeyo kabacdi wuxuu aadayaa login page-ku aadayaa so login page-ka asaga wuxuu leeyahay just email iyo password bisuu leeyahay okay so just form caadi ah email password weli halkan waxaa ku qoran weli registration iyo login aan ku qoran karo markuu qofka uu login sameeyo so email iyo password u geliyo waxaan u diraynaa page cusub oo bedelaya navigationkan kore okay navigationkan kore wuxuu noqonayaa markaa page cusub maybe let's use different color wuxuu noqonayaa so this is meesha private routeska meesha waxaa marka qofka uu login sameeyo kabacdi inta waxaa ku qornaanayso wixii caadiga ah ku qornaa laakiin waxaa ku qornaanaysa meeshii login iyo registration ku qornaan lahayd waxaa ku qoran logout okay maxaa yeelay qofku hadduu ku jiraa waan ognahay inuu ku jiro inuu logout sameeyaan rabnaa hadduu u baahdo inuu ka baxo applicationka okay wuxuu arki karaa marka kale add book u arki karaa add book halkan buugu ku dari karaa add wuxuu kala arki karaa bugaagta dhan halkan uu arki karaa laakiin bugaagtu way kala duwan yihiin so bugaag waxaa jiro qofkan sameeyey kaba soo qaad qofka hadda login garaysan buugu sameeyey uu ka duwan yahay bugaagta kale ma lahan edit button ma lahan ama delete button ma laha laakiin buugu qofka sameeyey wuxuu leeyahay edit button iyo delete button uu leeyahay okay taasna inaan kala hubino waa buug ama qofkaana sameeyey ma sameyn hadduu asaga sameeyey waxaan ogolaanaynaa qofka inuu edit gareeyo waxaan kaloo ogolaanaynaa inuu delete gareeyo bugaagtiisa okay waxaan kaloo sameynaynaa inta profile aan gelinaynaa so navigationka profile sorry mouse ma haysti maanta so profile aan gelinaa profilekaas waxaan kusoo bandhigaynaa qofka magaciisii emailkiisii waxaasaan kusoo bandhigaynaa waxyaalahaasaan sameynaynaa intaas waaye waxa aan sameynayna maanta wax su'aala so far wixii aan horey u haysana waaye waxaan ku dareynaa xoogaha yar oo qaybta maxaa la jira RTK-ga waxaan ku dareynaa qayb userka wixiisii iyo authorizationkii ama loginkii registrationkii waxaan u dareynaa slice gooni ah userka asagana slice gooni ah ugu dareynaa so intaas waaye kabacdina components kala duwan aan sameynayna waxyaalaha naga caawinaya any question intaan hore u soconin okay waxaan rabaa inaad fahantaan conceptiga waxa general aan sameyn doono maanta okay so hadda marka waxaan fiirinaynaa marka codekii hore kan waa casharkii hore wixii kusoo bilaawdeen so the usual stuff componentskii home waxaa ku jira wixii caadiga ahaa waa bugaagtaan soo bandhigaynaa haddii aan fiirino let's see if we can start applicationkan npm run dev halkan saa ujeedaan waxaan ka bixiyay serverka kuma jiro
okay server kuma jiro waxaan u sameeyay serverka file gooni u sameeyay waa kana okay file gooni uu leeyahay adinka markaa ka shaqeynaysaan casharkiina serverkiina wuxuu ku jirayaa internetka okay internetku ku jirayaa xoogaa yar slow waaye markuu internet ku jiro soo waxaa samaysaa wax yar bilaab markaa bilaabaysa haddaa applicationka cabaal ka maqan tahay taasan assignment-ga ka hadlaynaa don't worry about it laakiin hadda serverka uu ka duwan yahay serverkan hadda waxaan qasamaynaa fahantaa laakiin waxaan u ogolaanaynaa qofka inuu account samaysto so registration waxaan samaynaynaa user registration waxaa kale oo sameynaynaa waxaan hubinaynaa qofka markii uu book sameeyo in bookgiisi asaga isku xiran yihiin so taasna waan ka hagaajinay so waxyaalahaasaan ka bedelnay un bas okay so let's go back tan oo applicationkanagii hore waaye so waxba isma bedelin tii laasa casharkaan dhigna ugu dambeeye waaye so saa ujeedid aad boogaa dhihi kartaa qof kastaa ku dari karo maxaa la dhihi jiray qof kastaana ka bixin karo so weliba halkaan noo daarnayn or maybe waxaan bedelay let's see the 800 okay okay problemka jira waxaa waaye serverka waxaan u baahannahay kan waa kan cusub waaye so let's put this one down waxaan u baahannahay inaan bilaawno serverkii hore so let's go over here waxaan aadina casharkii hore aan aadinaa tinkaninu ahaa qaybta serverka bisaan ka bilaabanaynaa okay so waxaan leenahay cd server and then waxaan leenahay npm start issue yara jirto okay yes because server kala bilaabsan isku mid yihiin okay so hadda serverkan waan bilaabanay okay so hadda haddaan fiirino refresh aan dhahno isku dayno inaan ku darno wax okay so hopefully caadi noogu shaqeynaa so noo shaqeey wakaasaa wixii horaa ku jiro qof kasta laakiin hadda dhib ku jiro waxaa qof kasta tirtiri kara wixii anyone can delete ma jiro waxa authentication iyo authorization ma jiro okay okay so hadda marka goalkanaga waxaa marka in aan kala habeeno components cusub aan sameynayna marka hore so componentska already kuwan waxaa noogu jiro bookski sidii kuwii caadiga ahaa add book edit book homeka noogu jiro homekan waxaa waaye waa meeshii aan kusoo bandhigaynay wixii bugaagtii oo dhan okay so waxaan ku daraynaa component cusub ama folder cusub aan ku daraynaa components folderkan cusub waxaan dhahaynaa waxaan u bixinaynaa midkan magacaan u bixiye user iyaan ku daraynaa so userkan gudihiisa waxaan ku daraynaa registration key so waxaan leenahay file cusub waxaan leenahay register.jsx waxaan kaloo ku daraynaa login of course .jsx iyo midka ugu dambeeyo ah profile.jsx okay so registration key loginka exactly waxay la mid yihiin markii buuga lagu daraayo camal just waxaa waaye waxay ku kala duwan yihiin basically waxaa waaye waxay kula duwan yihiin waa qaybaha inputski kula duwan yihiin waxyaalaha kalena iskaga mid waaye inaan hubino waaye waxyaalahan so waxaa soo copy garaynaynaa buuga aadkiisa waxaan aadaynaa register waan ku paste garaynaynaa so waxaan sameynaynaa waxaan bedelaynaa magaca so waxaan leenahay register hoos inaa ka bedeshid waaye waxaan kale oo bedelaynaa ilaa dukurinay fieldskan waxaan u baahannahay inta name aan u baahannahay think name inuu yahay waa hubin karaa okay so name problemka jira hadda waxaa waaye waxaan ku xirannahay serverka qaybta horaan ku xirannahay so wax yar kabacdi aan bedelaynaa waxaan bedelaynaa kan cusub aan bedelaynaa okay inta waxaan u baahannahay email iyo password okay intaasaan u baahannahay iska tirtiraynaa kan waxaan dhan saa noo hubinayo okay so email password name is required okay all that is good
Okay, intana waan bedelayna sidoo kale. Also meesha add book aan leenahay inta would be register. So waxaan ka sameynaynaa sliceski aan ka sameynaynaa. So waxaan leenahay register. Okay. So name, email, iyo password. All right. So navigation ka okay waaye. Also kan waxaan rabnaa inaan navigate gelino marka qofku register garay login kinu aadaa fiican. Taasna waan dib baan ka sameyn doonaa, no problem. Midda kale waxaa marka fields kana bedelaynaa tan ugu horeysa meesha title ka tahay waxaan ku bedelaynaa name. Inta capital ka dhig. Kana waxaan ku bedelaynaa email author kan. Email. ugu dambeeyana password ku bedelaynaa. So type inuu password ahaado waaye maxaa yeelay waxaan rabnaa inuu isbedelo type-ka. oo macnaha uu noqdo una tusin waxa qofku qoraayo. So kan aan ku qoraynaa password. waa ila socotaan aan filayaa hadda so far. waxa la bedelaynaa bas. Okay, kana iska bixinayna uma baahnin. Okay, inta add book meesha dhahayso waxaan ku qoraynaa register. korna sidoo kale meeshan add book dhahayso waxaan ku bedelaynaa register. Okay, so registration form ka in general intaas waaye. wax badan ma kala duwano meeshaan waxaan leenahay of course mutation ka waxaan inaan sameyno waaye. So taasaan sameyna marka hore aan aadna halkan. So inta waxaan ku sameynaynaa slices cusub. So slice waxaan ku bilaabaynaa mid la dhaho auth slice. Yes, auth slice kan wuxuu naga caawinayaa registrationka iyo loginka. Okay. mid kale aan ku daraynaa la dhaho user slice. JS. kaasna wuxuu naga caawinayaa inaan qofka informationkiisa soo jiidano qofka login gareysma. Okay. So auth-ka waa basically same as kan waaye. just waxay kala duwan yihiin meelaha hadda aan sameynayno oo waxaan carrad ka badan uma baahnin. So waxa dhan waa isku wada mid laakiin waxaan sameynaynaa base URL kan saa u jeedid meel kasta inaan gelino waaye. waa inaan gelino auth, waa inaan gelino book slice, waa inaan gelino user. and concept waxaa jirta programming oo dhaho dry taqaaniin intiina badan. dry waxaa don't repeat yourself isku soo celcelinin wax. So waxaan sameynaynaa kan waan dhaqaajinaynaa asaga dhan sidiisa dhanba. waxaan aadinaynaa file cusub aan sameynaynaa. waxaan leenahay base url.js. isaga shaqadiisa intaas waaye. exportna waan leenahay. Okay. So hadda meesha kan uu saan ka yahay marka waxaan leenahay halkan iska tirtiraan leenahay kan. waxaan leenahay import base url. Okay. So wuxuu kasoo jiidanayaa base url kan kasoo jiidanayaa. waana default waaye. So hadda basically haddaan rabno inaan bedelno URL kan uma baahnin inaan aadno mid kasta file kasta inaan aadno uma baahnin. Okay. And okay, so aan sameyno marka auth-ka. auth-ka basically isku midka kan camal waaye. So aan copy garanaynaa. saa ogtihiin RTK shaqada way fududeysay. So kan waxaan ka dhigaynaa let's make it auth slice. intana waxaan ka dhigaynaa auth. auth waxaa loo soo gaabiyey authentication. Okay. So intaas markaan sameyno kan waxaa ka dhigtaa I don't think aan u baahannahay tagska hadda but let's add here. iska tirtir we don't need haddeetan tagska. Okay. So markaan saas sameyno inta waxaan u baahannahay just inaan dhahno register ama iska soo gaabi waxaa dhahdaa register. intana kana login. waa post waaye registerka of course. intana waxaan ka dhigaynaa register. Okay. So kan iska bixi provider kan registration ka kaasa intaas waaye. waa post waaye qofka actually waxaa naga maqan one more thing because qofka markuu soo register information soo diraya soo ma wuxuu soo diraa inaan qabano marka. So let me get my so waxaan u baahnaa meeshaan inaan gelino new user. Okay. and then badigan inaan ka dhigno new user. Yes.
intaas u baahan. Okay. Okay, so login kale sidoo kale kuwaan kale iska tirtirayna uma baahnin marka waxaan kale so kuwaan iska tirtir kan waxaan dhahnaa instead of that waxaan leenahay login kana register. Okay, so loginka asagana sidoo kale waa exactly waa isku midkii waa post request waaye inta waxaan leenahay login new book intaan dhehayna waxaan leenahay user qofka oo soo login gareey waaye intaan iska tirtir. Okay, kuwaan dhan hoos waan tirtirayna intooda badan. Okay, so hadda inta naga halaysan ma jiro inta looks good. So kuwaana marka hagaajinayna kuwaan automatically waxaa noo sameynayo baalka igu jira noo sameynayo. So waxaan haysanaa user register query intay tahay query uma baahnin halkaan inaan mutation ka dhigno. Mutation saa ujeedid wuu garanaya already. So haddaa ku qortid query wuxuu kugu qoraa query. Use registration mutation, use login mutation. Laas aan u baahnaa. Kana sidoo kale inaan hagaajino auth slice.reducer. Okay, so hadda registrationkii iyo loginkii waa dhameynay. Inta aan tagnaa u baahannahay aan ku darno. So already kuwaana noogu jiro. Inta waxaan ku daraynaa sidoo kale import aan leenahay auth slice from halkan. Intana sidoo kale just line kale le ku daraysaa bas isku midkii waaye style-ka isku midkii. Waxaa leedahay auth.slice reducer path and then auth slice.reducer. Kana sidoo kale meeshaan iskaga xiran yihiin soo mujeedid. Meeshaan concat-kaanan ka hadlay. Concat oo concatenation waa loo soo gaabiyey. Hal xaba le ku daraysaa isagana meeshaan middleware ahaan soo mujeedid. .concat make sure halkaan line-kaan inuunan kan lahayn. waxaan ugu daraynaa auth slice-kii middleware. Intaas waa qaybtan. Okay. So hadda authorization waa sameynay. So haddaan dib ugu laabano wixii haddaan sameynayna oo ahaa registrationka. Meesha halkaan waxaan ku bedelaynaa wax kale. So halkan maxaan soo jiidanaynaa? Waxaan rabaa inaan hubiyo inay ila socotaan. Registrationkii soo jiidanaynaa. Use registration. Yes, waxaan soo jiidanaynaa use registration mutation soo jiidanaynaa. Okay, so automatically I think I saw soo jiidaa, but if not, waan habeenaynaa use registration. Because hubina meeshu ka soo jiidaayo because file kala duwan hadda haysanaa. So iska hubi. Kana sidoo kale waa bedelaynaa just I think register le waaye. I think lower case inuu yahay. Register. We'll see. And register kaana qaadayna waxaan geynayna halkan. That's it. Okay. So wixii dhan noo habaysin hadda registration hadda diyaar waaye marka. So haddaan rabno inaan isku dayno waxaan aadaynaa app.js aan aadaynaa. So app.js marka waa inaan u sameyno meeshii la aadi lahaa inaan u sameyno. So we have routes halkan. Do we have the links kana waa kuwana. So hadda application kanaga marka waxba kuma jiraan halkan soo jeedid. So inta waxaan ku daraynaa register aan ku daraynaa ama sign up wixii noqotaba. So meeshaan aan ku xijinaynaa. Waxaan leenahay li waxaan siinaynaa li gaan link aan siinaynaa. Edit book maaha laakiin waxa waaye waa register kan. Kana register. Okay. So register ka marka wuxuu u baahan yahay route u baahan yahay of course. So route aan sameeynaa automatically asaan oo sameeynaa but kan inaan soo jiidano waaye. No, halkan kuma jiro. Wuxuu ku jiraa components/user/register. Okay. So kaas oo noogu jira. So let's click that. Bismillah. Okay. Wuu noo soo baxay. waxaan rabnaa inaan hubino inuu actually waxa shaqeynayaan in wax la register gareysmo. So waxaan sameynaynaa let's add no
registerka waxaan fiirinaynaa markii uu register garay ka bacdi intuuna navigate sameynin waxaan rabnaa inaan fiirino wuxuu inuu sameeyey. So inta waxaan leenahay cancel log register success laakiin waxaan rabnaa values inuu noo socoto. Actually inta waa laga roon yahay waxaan rabnaa inaan hubino 100% inuu register garay. So waxaan rabnaa inuu noo soo celiyo wixii. So waxaan aadaynaa API-ga auth intaan fiirinaynaa. So let's make sure inta waxaa jira marka waxa la dhaho on tan uma baahnidin inaad ogaataan on queue started qualified cancel log qualified waxaan dhan uma baahnidin rejected inaad ogaataan. Okay. Actually, no, never mind. Inaan wareeriyo ma rabi. Waxaan ku hubinaynaa intaan ugu yeeraynaa postman aan isticmaalaynaa. Just waxaan fiirinaynaa halkan waxaan fiirinaynaa let's do something like if you're not like users in a has endpoint there, but it's okay. So let's cancel log error. Halkan aan aadaynaa register waxayna siinaysaa halkan error una siinaya. So error is equal to waxaan leenahay empty object. Intana waxaan leenahay hoos cancel log error. Hadduu error jiro meeshaan ku soo saaraya. Okay. Register error. Okay, so let's see. Fiirina cancel log. Okay, hadda wuxuu object soo saaraya like objectiga waxa kuma jiraan soo jeedo empty object waaye. That's fine. So aan fiirina marka user cusub aan sameynayna. Let's do farah at gmail.com. Password waxaan sameynayna 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so bismillah. Okay, so error uu soo saaray wuxuu leeyahay ma jiro kaas. Okay, so ya ii sheegi kara meesha wax ka jiraan marka the problem. I know aniga waan garanaa meesha wax ka jiraan. Yeah. Endpoint-iga waay maxaa endpoint-iga maxaa ka qaldan? Tag types kama aan qeexin waad ka tirtay. Let's go here. And halkan. So endpoint-igan okay waaye waxa kama qaldana. Okay, so problem-ka jiro waxa waaye because server-kan ku xirannahay waaye ugu laba server aan sameynay mid wuxuu ahaa midkii hore oo kan wuxuu ahaa kan marka kuma jiraan wax oo registration kuma jiraan waxa ku jira bookski bas ku jiro so kan inaan ka baxno aan iska dhaafno kii hore soo furno waan darno inaan registration sameyno user cusub so kii hore waa kana isagaan bilaabana so hadda haddii aan isku dayno inaan register gareyno inuu caadi u shaqeeyo okay uu shaqeeyey redirect uu sameeyey home ku aaday haddaan inaan hubino markaa waxaan sameynaynaa login aan sameynaynaa okay login halkaan ku sameynaa because login weli maanan isku dubaridin dhinaca codeka so inta waxaan leenahay login post aan gelinaynaa kan uma baanidin inaad ogaataan qasam maaha inta waxaan leenahay email kan waxaa la postman waxaa ku fiirin kartaa endpoint inay shaqeynaysa in kale camal yaa ku fiirin kartaa so emailku wuxuu ahaa farah@gmail.com haddii uu kan u sax yahay uu userkan jiro waa inuu halkaan nooga soo bixiyo waxa la dhaho token intan waxaan ka dhignay 1 2 3 4 5 6 7 everything looks good waxaan inta ka bixiyay okay so hadduu success yahay inta wuxuu kasoo bixinaya token okay iyo userka informationkiisa ka okay so dhaweeyo soo aragtaan so user information key iyo token uu noo soo bixiyay
user ko kaasa Faarax ID-giisa 4 email-kiisa password-kiisana oo kaasa password-ku waa hash uu ku xiran yahay micnaheedu waxa waaye password sidiisa ma gelinayna systemka tana hadhow markaa backend-iga barantaanan idin baraa habka hashing-ka loogu sameeyo password-ka token-una siinaa token-kan waxa u baahanahay token-kan waa waxa aan ku soo jiidanayno box-ka annaga aan leenahay aan ku ogaanayno inaan log in nahay in kale all that token-kan waxaan gelinaynaa markaa waxaan gelinaynaa cookie-gaana gelinaynaa token-kas so habka aan gelinayno waxa markii aan login garayna markii aan user-ka u log in dhaho waa in cookie-ga aan gelino token-kan taasna hadda log in-kaan sameynaynaa so let's do the login waxaan ka wadaa log in-ka inaan halkan ka hagaajino so qaybtan log in-ka markaa hal waxa kale aan ku daraynaa oo ah markii uu qofka log in sameeyo soo jiido token-ka soo jiido waxaa gelisaa cookie-gan gelin intaas le waxaan leenahay so success markuu noqdo kabacdi so right here waxaan gelinaynaa waxaan leenahay on query started on query started waxaan leenahay async marka query-gu bilaado ama waxaan markay bilaadaan kabacdi waxaan leenahay inta waxaan gelinaynaa arg waxaan qasamayna ka walushaan uma baahnidin waxaa dhan waxaan u baahana bas query qualified أنا أبغى query qualified query fulfilled أنك وذا query fulfilled قام عندنا ذا حواي log إنك success ونقطة لك وذا كان so كان استعمالنا حالنا كان هدو جرو صحيح هاي معناه ذا حواي وقفك أوكي وقلين كرتا وحي صلابت try قلنا try catch كوا حب code loss ما يوا معناه ذا حواي مركو هره try كان رانجره أنا try وحواي وصير عمل if عمله haddii ay waxaan sax yihiin then kan raangare trygan raangare haddii kale qalad hadduu jiro catchkan aad waa sida then iyo catch camal waa isku midkii okay so hadda marka wuxuu uuna siiyo waxyaalo badan laakiin kan waa meesha qaladka ka jiro local storage ma gelinayno maxaa la jiray baalka local storage haddaan gelino yaa ii sheegi kara maxaa dhacaya haddaan gelino tokenka naga local storage what's gonna happen maxaan u gelin local storage ya kii hooyaan waxreena igu soo celi بس سيف جريس معايا wuu save graysma laakiin maxaa in local storage hadii aa ku store gareyna dabcan si permanent uu yani browser ku nooga hayn doona userkaas ilaa anaga until inta imaana ka tirna mooyaane okay so local storage-ka taas waxa waaye waa saan filayo waa dhinaca kale u gadisay local storage waxa waaye waa temporary waaye permanent ma aha temporary micnaheedu waxa browser-ka hadaan xirno local storage wuxuu ku jira ku tag waaye so qof markasta oo qofka xiro browser-ka waa inuu haddana login kala sameeyo mar kale taasna uma baahna inuu sameeyo maxaa yeelay waa ma fiicna it's not a good user experience ma aha waxaa u baahanta qofka in uu iskaga jiro cabaar ilaa asaga uu log out sameeyo okay ama uu browser-ka iska furnaado ama iska xirnaado ilaa adiga ka soo qaad dhowr saacadood camal ama maalin camal hadduu browser iska furan yahay qofka login iska yahay inaad ka bixiso taasna waxaa isticmaalnaa cookieska waqti gooni ah siin kartaa expire taasna already waxaa siiyey tokenkan wuxuu wataa waqtiga uu cookie dhici lahaa uu wataa okay exactly waqtigu dhici lahaa waxaas dhan anaana taas hore usii sameeyo serverka waa okay so meesha local storage aan leenahay just inta waxaan ku bedelaynaa set cookie laakiin waxaan u baahannahay one more thing waxaan u baahannahay package naga caawinayso waxaas so package waxaa jirta la dhaho waxaan leenahay import cookies from JS cookie alla packagekan noguma jirta hadda so inaan soo jiidano waa package yaro naga caawinayso in aan npm install JS cookies tan waxay naga caawinaysaa cookiega inaan gelino meesha loogu talagalay so inta just waxaa leedahay marka set actually waxaan sameynaynaa function yaraa sameynaynaa meeshan kore waxaan leenahay functionkan waxaan leenahay const set waxaan leenahay set token
set token cookie set token iska leenahay kuma soo waxaan kaloo leenahay marka habkaas u geliyan leenahay so basically kan functionka wuxuu sameynaya waxaa waaye one more thing aan ku daraynaa functionka wuxuu sameynaya wuxuu helayaa tokenkii kabacdi wuxuu gelinayaa tokenkii cookiga magacan wuxuu oga dhigayaa halkan name wuxuu oga dhigayaa token waxaa kaloo naga maqan one more thing oo ah expirationkii actually expirationkii intaan ku set up garaynaynaa so let's do this expire tan haddaad dhahdid one waa hal maalin waayo okay hal maalin seven haddaad dhahdid 7 days ku dhacaya okay expires that okay intaas la barka that's it so tokenkan markii la geli cookiga hal maalin gudaheedu ku dhacaya saacadaha daarto geli kartaa halkan hal saac laba saac hal daqiiqo waxa rabtaa gelin kartaa so meeshan gudaheedu marka just functionkaas soo jiidanaynaa and then waxaan siinaynaa tokenkii so tokenka wuxuu ku jiraa result token inuu ku jiraan jeclahay ama result data token I'm not sure but we'll see I think result token one okay so hadda waa loginka bas waa ogow so loginkana nooma samaysno so let's do the loginkana aan samayno so registrationka loginka exactly the same waaye just waxay kula duwan yihiin un base kana waxaa ku jira name so let's copy this inta waxaan ku bedelaynaa login so saa ujeedid markii aad code qorto waad soo gaabsan kartaa adiga oo copy garaynaya code lamid ah so uma baahnid inaad markas zero kasoo bilowdo haddii aadan u baahnayn so intan waxaan leenahay login waxyaala xoogaha inaan kala duuno waayo of course let me see the loginka let me double check notekeygi user login okay so meeshan kore of course waxaan u baahnay inaan soo jiidano loginka so inta waxay noqonaysaa use login mutation sidoo kale kana login uu noqonayaa maxaa kale waxaan kaloo u baahnaa inaan hubino so intaas markaan sameyno kan inaan ka bedelno login inaan dhahno kan meesha uu magac ku jira magac kuma jiro waa just waa email iyo password kadibna intaasaan sameynaynaa wax kale aan ku darayna hadhowdii laakiin hadda inaan simplify garayaan rabaa okay kanna verification kan waxaan ka bixinaynaa name that's it taas leewaaya so hadda meesha app.json tegaynaa waxaan ku daraynaa loginki of course kal ku dar nooma fiirinayo li yeah login okay so and then halkaana sidoo kale route login inta waxaa login soo jiidanaynaa laakiin waxaan horaa u taqaanin so saasaan dhaqso u maraya laakiin haddii aad ku wareersato waxaan hadda samaynayo ila soo socodsii so loginka waa kaa login okay so waxyaalo badan ku jira meeshan inaan ka bixino waaye uma baahnin name fieldigan nameka uma baahnin ka bix meesha so email iyo password bisaan u baahanaa everything else should be good so haddaan fiirinaynaa marka so hadaayo waxaan register garayna qofaan register garayna Faarax so Faarax hadda waxba inta kuma jiraan soo maaha markii aan sameyno aan dhahno Faarax@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 aan dhahno inta waa inuu soo galo token haddii kala qaladaan ku jirnaa so token and then tokenkii wixiisii iyo waqtigu dhici lahay waxaas dhan waxaan soo gelin so qalad ay jiro okay let's double check meesha qalad ka jira okay query for field ma jiro waxa la leeyahay so okay let's go back authka query fulfilling ma jiro waan u jirin maybe saas looma qoro okay let's double check my note query for field
Okay, query started. On query started, waxaan leenahay query fulfilled. Spelling ma qalde. QUERY fulfilled. Why did you there? Oh, okay. So can query fulfilled ma function maaha. Query fulfilled gasan sugayna function maaha waa just waa method oo na hubinayso wixii in uu dhamaystirmay. So hopefully everything should work. Internet cancel log. Okay, yeah. So into our error came on. Okay, application adding cookies login para at email 1 2 3 4 5 6 7 register. Okay, yeah, right there. But problem ajiro ma muso jiidanin token key. Okay, so uu geliyay laakiin token muso jiidanin. So taasina hubinaa marka meesha wax ka jiraan. So token ka marka I think meesha waxa ay dhahay waxba inta ka jiro. So aan cancel ku sameeyna marka result-gan. Result. So inta waxaan leenahay result. Okay. Let's do that. meesha wax ka soo laabanayaan. So hadda waxaan leenahay inta aadayna isku dayna inaan login gareyno. I don't know why aan u save gareynin kaas. Okay. So another thing is marabna inaan navigation sameyno. So kan meesha iska bixinayna for now. Isla meesha inaan joognaa rabnaa. Okay, result. San ka hadlayo waa data waaye. Data token waaye. Ma ahan kana ku soo celinay CC. Ma ahan result dot ma ahan waa result data dot token. So haddii waxa kugu imaadaan issues waxaas iska hubi cancel ku samee all that. So haddaan inta tagno token kan aan tirtirno because waxa kuma jiraan and login aan dhahno. Okay, it's good, token is good. wuxuuna siiyey maxaa la jiray waqtigii. So let's look at the waqtiguna siiyo kaasa waqtigaas u dhacaya. I don't know. maxaa la jiray meeshan size-kiisa waxyaala carad ka badan ku jiro. HTTPS miya inta waxa HTTP only hadduu yahay website-ka secure hadduu yahay inta waxa ku qornaanayso one camal ku qornaanayso. waxyaalahaasna back-end-ga markaad tagtaana baranaysaan si loo set up gareeyo. But intaas leeyahay. wax su'aala soo farad. Any question? Okay, so token kokaasa uu dheer yahay waa kan back-end-gan ku sameynay. waxaa la dhahaa JWT. waxaa la dhahaa JWT na la dhahaa JWT na loo soo gaabay JWT.io. waa kana kan waaye. inta lagu sharaxayo wuxuu yahay uma baahnid in aad fahantaan hadda mustaqbalka fahmi doontaan. Just basically waxa waa hab lagu ilaalinayo amaanka qofka loo garanayo. So waxaan hubinaynaa waxyaalo badan oo qaybahan oo dhan aan hubinaynaa soo jeedid kala rag kala duwan leeyihiin. waxaa la hubinaa all the information qofka inta waxa informationkiisa ku jiro walla header waxa la jiro kan all that. So wuxuu sameynaa waxa la signature code allaha macnaheedu waxa caddeyn qofkan qofku yahay iyo caddeyn u yahay. code kan qofka raba arki karo because lama hacking lagu sameyn karo. It's not easy. wuxuu isticmaalaa algorithm la dhaho noocaas. So ma fududa hacking. So lagu sameyn karo hacking ma fududa. wuxuu ku qaadanayaa computerada caadiga wuxuu ku qaadanayaa sanadyo badan. maybe 100 sano camal ku qaadanaya in hack gareysa. kuwa ka sii adaga jiro of course algorithmyada kala duwan yihiin. kana kii ugu dambeeyay waa. wax su'aala any so far. Okay. So hadda registration iyo login waan sameynay. Okay. Profile kan oo dambeeyo. Laakiin dib ku jira hadda waxa marka hadda register gaysinta labadaba waxa waad edit gareyn kartaa hadda. You could edit, update. Still waxa kale arki kartaa register iyo login kan waa ujeedaa. So hadda login gareysan tahay maxaa register iyo login uga baahan tahay. Log out in ku qornaato halkan soo baxdid. add bookgan markii meesha laga baxo. So let's say camal hadda log out hadaan sameynayno waxa u baahanay inaan meesha ka bixino tokenka
so token haddaan delete dhahno on page refresh ku sameyno weli waxaa arkaysa adbook aa meeshan ka baxa waa hadduuna qofka login garaysnayn so waxyaalahaas waa set up waaye waxaan ka hadlaynay oo private routes ku xidhahaan so these are private routes sidee loo sameeyaa ayaan ka hadlaynaa insha allah hadda let's take 5-minute break aan qaadanaynaa kabacdina private routes kan ka hadlaynaa si fiihin okay 5-minute timer insha allah isku soo laabanaynaa where's the timer ka jirnay whatever 5 minutes hey
Okay, so laabano waqtiga waa dhacay. Let's get back to it inshallah. Okay. So just so dhawaada. Yeah, la ila jooga hadda. So si fiican ma maqshaan. si fiican. Okay, good. Yes. Meesha ka Ah, sii si wata. fiican. Yeah. Si fiican. Okay. So marka ugu dambeysay waxaan ka hadalnay, let me do checking on recording kulli wada. Marka ugu dambeysay waxaan ka hadalnay we need routing inaan sameyno private routes. Private routes waxa waaye in aan kala habeeno kuwa public ah iyo kuwa private ah. Kuwa public waxa ka soo qaat register, login, home, kuwaas public waaye. Ad book waa private. Waxaa u baahanaa qofka markuu login gareeyo kabacdi inuu arko ad book uu ku dari karo book. Waxaan kaloo u baahannahay inaan hubino meeshaan. Delete edit waa private waaye. So hadda haddii aan click garayno edit u aadaya private inaan ka dhigno. Also private bis inaan ka dhigno ma ahan oo qof kasto. Maxaa yeelay bugaagta qaarkood qof kale soo gelin karo, qaarna qof kale. So kuwaan waxaa u baahan inaan hubino horta qofku yahay. Okay? Taasna waxaa u baahan inaan soo jiidino userka. So aan istaajino horta marka hore slice kana istaajino oo ah userkii. Tan waxaa uga baahana base userka informationkiis bas uga baahana. So wax weyn ma ahan. So let's go here. Can I copy garanayna? Let's go here and user. Just waxaa u baahan inaan ka bedelno couple of things. Kan waa user aan leenahay. User and then user. Okay. Cookie gaani uma baanin because ma set garanayna cookies. Waxaan kalo laakiin cookie waxaa uga baahanay inaan raadino marka hore cookie inuu jiro in kale. So u baahannahay laakiin habka uu noogu taagan uma baanin. So just aan soo celino laakiin waxaan sameynaynaa function la dhaho get cookie. Cookie ga magaciisa and then okay, so set cookie. No, waxaan uma baanin. So get cookie. That's it. So function yar waaye oo soo jiidanayo cookie ga ku jiro token ka soo jiidanayo. Intaas uga baahanay kan hataa magacan uma baahnin. Inta waxaan gelinaynaa waa ognahay magaciisa maxaa yeelay magaciisa waxa waa token waa kana. Already waa garanaynaa magaca. Of course hadda kuma jiro. You have to log in. Token. Okay. So token. So inta waxaan gelinaynaa token. Okay. So intaas uga baahanay kan. Okay, so markaan sameynayno userka marka waxaan u baahannahay wax la dhaho inaan sameyno prepared header. Prepared header muxuu yahay? Badanaa markii aad wax soo jiidanaysid oo sorry there's ciyaal meeshaan wax ku daawanaya. So let me go to somewhere else. Okay. So prepared header markii aan sameynayno. Prepared header waxa waaye meeshaan saa u jeedid hadda markii aan isticmaalayno Postman wuxuu leeyahay header uu leeyahay. Headerkan waxaa loogu talagalay let's go to authorization. Authorization laftigeeda waa header. Waxaa loogu talagalay in uu qabto tokenka. So hadda inta haddaan ahna bearer tokenkan waa kana isticmaalayno. Waxaa ku jira tokenkii soo jeedid. Tokenka soo laabtay exactly ma ahan ku hore ugu jiro waa kan. Kaasaa ku jiro. So haddii aan rabno inaan hadda soo jiidano kaba soo qaad buugaagta qofkaas sameeyey kaba soo qaad ama aan soo jiidano qofkaas informationkiisa waxaan u baahanay marka hore inaan set gareyno header inaan set gareyno. Headerka waxaa waaye waa just tokenkii aad siinaysaa marka hore. Waxaa leedahay tokenka waa kana isticmaal tokenka iyo waxaa isticmaashaa post requestiga isticmaal kabacdi soo jiido. Yeah. ما مقشان. Okay. So قفا سؤال يودي let me double check. arrimaha Firebase waxaas dib aan uga jawaabi doonaa insha Allah markaan dhammeeyo casharkii igu soo celi
tan waxa waa just caadi waa anaga sameysana serverka Firebase maaha. Okay, so waxaan u baahanahay inaan gelino tokenkan headerka. Sidee loo geliyaa tokenka headerka markay noqoto RTK markay noqoto sidee loo geliyaa headerka? meeshaan inaan gelino marka right here inaan gelino headerka. Macnaheedu waxaan leenahay basically inta aadan because waxaan registration hadda ma sameynayno, we don't need this. Hadda ma baahanin. waxaan sameynaynaa hadda waxaan leenahay get user waa get request waa tan intana waxaa weeye waa user I think inuu yahay waa hubinaynaa endpointiga intana waa get user. So kan inta aadan soo jiidan userka waa in aan header haysano just sida halkan oo ugu baahan tahay header hadaartid inaad request aad samaysid post request aad samaysid. So taas daaran inaan sameyno base baashaan aan dhex gelinaynaa marka base query-gan gudihiisaan gelinaynaa. So after URL-ka waxaan gelinaynaa prepared header aan gelinaynaa. So waxaan leenahay magaciisa waxaa la dhahaa prepared headers. Prepared headers wuxuu qaataa headerska waxaa sida camal tokenka waaye. wuxuu sameynaa get state waa habka uu kusoo jiidanayo state caadiga oo let's see now we don't even need get state. So get state iska dhaaf bas badanaa waxaa loo isticmaala waxyaalo kale wuxuu soo jiidayaa markaa wuxuu fiirinayaa waxaan hadda aan sameynay functionkan wuxuu fiirinayaa token ma wataa uu leeyahay kaas. So wuxuu leeyahay functionka soo jiido okay token ma jira oo macnaha muu leeyahay tokenkan wax ma ku jiraan. So inta if waa uu hubinayaa haddii wax ku jiraan wuxuu leeyahay waxa ku jiro waxaa ku set garaysaa authorization waa kana authorizationkan ka hadlaynay authorizationka hore oga hadlayn ma kan waxaa basically waa marka qofka uu login garaynayo in la hubiyo qofku yahay haddaan rabno inaan hubino marka hore waa inaan tokenkiisa aan gelino headerka okay kabacdina just waxaan leenahay soo celi headerka waa kana waxaan ka hadlaynay bearer tokenkan waa kana. So bearer tokenka waa habka aad ku hubinayso qofkan qofku yahay inta aadan wax siininba okay. Sababtaan ku kaydsanayna waxa tokenka dhinaca cookiga waxaan rabnaa inaan u isticmaalno headerkan bas macnaheedu asaga waxba nooma sameynaa tokenkan cid garanaysa ma jiro wuxuu yahay waa number iska wax isku jiro waay. Laakiin markii aan headerka gelino waxaa loo dirayaa serverka ani aan sameeyey oo backendiga loo dirayaa serverkaas uu garanayaa qofkan qofku yahay. Markuu tokenka qaato wuxuu fiirinayaa qofkan qofku yahay wuxuu leeyahay okay hebel waaye waan garanayaa magaciisa xiisi okay u ogolow inuu requestigan sameeyo ama post requestigan ama get requestigan uu sameeyo u ogolow okay. hadduuna jirin marka kan hadduuna ka baxsan yahay halkan uuna ku jirin then ma shaqaynaysa tan macnaha requestigan ma la diraayo okay. intaas leeyahay bas marka prepare headerka lagu sheegay intaas waa. So get user markaan dhahno waa intaas waxaan leenahay get request waaye wuxuu leeyahay endpointiga waxaa waaye waa user okay. And then intaas markaan dhahno badigan uma baahnin kaas get leeyahay hadda okay. So kana of course waxay sidiisa horeba sheekadii hore leeyahay wuxuu leeyahay use it's not mutation maaha waa query taas iska hubi yaa ii sheegi kara waxay kula duwan yihiin mutation query aan ka hadalna cabaar maxaan u isticmaalnaa ساد كوري ومركا استعمالين ومركا رمنا وحسو أخرين مركا mutation أو استعمالين مركا رمنا بدل كذا بوت بوست ديليت وحلا من ده. That's good. Okay قف كل حكود على مجرى. query waxaad isticmaalaysaa macalin markaad wax badan dalbanayso ama tusaalahaan oo kale halkan waxay u taagantay gidoo kale mutationna wax kastoo la bedelayo wey haddii butay ama haddaad wax ku darayso ama editay ama delete garaynayso. Good qof wuxuu yidhi mutation is for post query waa get okay yes. So mutationka waxaa waaye waa markii aad query waxaa markii aad get isticmaalaysid wax soo jiidanaysid. Mutation marka dhahdana waa kuwa kala waaye waa sida post delete iyo put okay. So intaas markaas niyadina ku hayso waaye. So kanuu noo sameeyey kanuu noo saxaaya so we're good.
and then waa inaan ku darno of course inaan halkaan ku darno waaye isagana. So let's do import user slice wuu soo jiidanayaa intan aan ku daraynaa sidoo kale user slice reducer path and then user slice dot reducer intan inaan ku darno concat kas inaan ku darno dot waxaan leenahay concat hubi commadan inay u dambeyso hubi markasta. So hadda userka informationkiisa hadda waa soo jiidin karnaa marka. Yes baby. Userka informationkiisa hadda waa soo jiidin karnaa. Okay. So let's go to an add no. Intaan ka rabno user informationkiisa. Original pointiga waxay ahayd in aan hubino marka hore waxyaalahan. So let's go back here. Okay. So waxaan sameynaynaa markaa aan sameyno halkaan app.js ka waxaan hubinaynaa marka. Bas app.js ka waxaan u baahannahay navigation kan qaar inuu muuqanayo qaarna inuuna muuqanaynin. So taas waxaan u baahanaa marka inaan soo jiidino mutationka userka inaan soo jiidino ama mutation aan dhihna queryga userka inaan soo jiidino waa. So let's do that. So typically waxa waaye waa sidii hore aan u sameynaynay. Let's double check aan ku sameynaya. Okay, so inta aanan taas sameynin waxaan u baahannahay maxaa yeelay waxaan u baahannahay markuu qofka uu kaba soo qaad uu isku dayo inuu wax fiiriyo kaba soo qaad adbook camal uuna login galaysnayn waxaan rabnaa inuu u diro qofkii login. So taas waxaan sameynaynaa file cusub aan sameynaynaa. Filekan cusub wuxuu noo hubinayaa qofka inuu qof authenticated inuu yahay qofkan qof macnaha login inuu yahay in kaloo noo hubinayaa. So filekan waxaa la dhahaa private route la dhahaa. So just meesha ugu koreysan ku sameynaynaa private route.jsx. Kan marka waa ku special waaye waa file special macnaheedu wuxuu nooga caawinayaa wixii la xiriiro authentication naga caawinayaa. macnaheedu waxa meel kasta oo gashid waad soo jiidan kartaa. kan badanaa wuxuu shaqo ku leeyahay routeska. So routeska app.js ku jiraan basically wuxuu hubinayaa hey qofkan ma login galaysan mise ma login galaysan. Hadduu login galaysan yahay waxaa tustaa wixii loo baahnaa sida camal adbook. Hadduuna login galaysnayn ha tusin. Okay. So inta waxaan sameynaynaa waxaan leenahay RCFE wuxuu noo sameynayaa maxaa la jira componentiga caadiga. dhowr waxaan u baahanay inaan soo jiidino intaan wax kala sameynin. waxaan u baahanay inaan soo jiidino marka hore cookie inaan soo jiidino. So waxaan leenahay import cookies or cookie means cookies. Okay, cookies from that. iyo waxaan u baahanay navigation key inaan qofka navigate aan ku sameyno meel inaan u dirno waayo. So react router dama isticmaalaynaa waxaan ka soo jiidinaynaa kaas kabacdi meeshan gudaheeda waxaan sameynaynaa waxaan hubinaynaa marka hore qofka in uu yahay tokenki inuu meesha ku jiro horta marka hore. So tokenka soo jiido tokenka ma jira waa jira tokenki kadib waxaan hubinaynaa qofka in uu locationka isticmaalayna waxaan leenahay location ama marka ugu horeysa waxaan hubinaynaa tokenka inuu jiro horta. Tokenka hadduu jiro waxaan leenahay qofka hadduuna jirin waaye inta waxaa u dirtaa login u dir. Okay. hadduuna jirin login u dir waaye. Okay. And then waxaan soo celinaynaa yes. Okay, go to mommy. waxaan soo celinaynaa wax yar isiya how البرخص isiya. Give me 1 second. Okay, kara lahado. Okay. So meeshan joogno waxaan hubinaynaa marka hore tokenka inuu jiro. Just basically how token waxaan ka soo jiidanaynaa meesha uu ku jiro oo cookie-ga. Kadib waxaan u diraynaa qofka hadduu una jirin waxaan u diraynaa navigate to aan leenahay meeshaas u dir. waxa kale aan ku dari karnaa halkan laakiin dib ma laha. intaan waa simplifying ka dhigaynaa. Okay, so meesha halkaan aan soo celinayno waxaan soo celinaynaa waxa la dhaho waxa la dhahan soo celinaynaa outlet. Outletkaas wuxuu ka imaanayaa react router down. mabaanin outlet la dhahaa. outletkan muxuu yahay marka aan fiirin horta. outlet wuxuu leeyahay halkaa markaa an outlet should be used in a parent route element to render
their child route elements. من على outlet وحاول حلو استعمالها إن لوسو عليو child routes. معناه ده حاول routes كخاص إيمانايو مدة أجوكت خاص إيمانايو. This allows Nest UI to show when a child routes are rendered. If the parent route matches exactly, it will render a child index route. Okay, so أنا كفهمي basically وحاول حسوا علينا so private route كانوا حسوه قلعه routes كلاسه قلعه. So markii routes كسوه قلعان هدي أي if statement كان صح تهاي معناه هذا حوايا وكبودينا معناه login ما أدينا. كتبوا حسوا علينا وحي أكو جرتي route كأكو جرت هذا add book وحرباء هذا سوء عليه على جودة مكس. So أنت أصله so حلنا هاي outlet بس. Okay. And then export. Did I write it correctly? Outlet, return outlet. Okay. انت صعمك. That's it. So كان وحنا قاعدنا مركو حبينا إنه token كجرو هدو جرو وحولي هاي وحسوا عليسا هدو جرو token كا وحسهرة أسيسو عدون جرين قفك أدير واي log in. That's it. Let me see if I miss anything. No, everything looks good. Okay, so كان استعمالنا مركا إن أن أبدأ JS كأن كوه بين قفك إنه جري إن كلا قفكم معناه إنه log إنجليزي إن كلا. So let's do that. حنسوي جديدين إن car of course import private route from private route. وحنكلا أباهنا هاي إن هو بينه إن هو بينه أباهنا هاي ماشان إن أنجلينه. So let's do that. So كان وحنا قاعدنا routes كان كورونا حاوباهنا سيجوني أستغنى أسمعنا. أنا إذا توصل سانتاس أسمعنا. Okay. So كان مركب private routes كوا مركب and add book و private واي. So سين كسمعنا. وكان كسمعنا حاوي private route كان أستغل route أسمعنا. So let's do this. خلينا هاي route path. خلينا path كان كده same path كان كده أو book add book. خلينا هاي slash books slash add book. ماشي هل كان add book هنقلنا هنا هنقلنا private route. private route. كدب كان waxaan ku soo xireynaa aan kala fogeeyo kan waxaan ku soo xireynaa xiritaankiisa see let me double check okay kan halkan ma soo xirin kan self close waa soo jeedid self close kan ka deynina intaan ka soo xireynaa okay hadda faanteen oo malena so basically private route wuxuu sameeyaa wuxuu hubinayaa route aan rabnay inuu private noqdo is hubinayaa so hadda haddii aan isku dayno of course wali muuqanaya maxay yeelay add booki URL-kiisa muuqdo but hadda private ku jira okay so kan hadda rabno markii aan hubino waxaan u baahanahay inaan isticmaalno if statement so kan waxaan u baahanahay halkan inaan still inaan cookie soo jiidano waaye okay so let's import cookies from JS cookies intaan ka sameynayna marka waxaan leenahay كان أحكي لسمعني let's make and سمينه state and سمينه نمر كاره so state كان ساسو قدين كنا نعلم لها const state كان is authorized okay that's okay وحان كلا سمينا إنه حنسوي جديدا إنه navigate from use navigate وانا الحين قاعد go ahead وف ما ربينا هلا okay so use effect استعمالنا مرة so use effect نسوي جديدا so waxaan dhaw waxaan sameeynaa maxay la xarabna inaan muujino midkii private iyo midkii kale use effect iyo use state labada soo jiid so kan uma baahan inaan saas dhahno inta waxaan isticmaalaynaa use effect aan gudihiisa waxaan hubinaynaa in uu tokenki jiro hadduu tokenki jiro waxaan leenahay waxaa gelisaa statekan geliyaan leenahay so tokenka hadduu jiro set stateka to true معناه state can true كده so waxaan isticmaali karnaa kan marka inaan hubino midkii jiro midka kale okay so let's do that
So navigation ka hadda markuu habeyn karnaa. Okay, so let's go here. Aan fiirino marka aad iskugu dhex jiraan waan ka xumahay baan aan kala habeeyo. Okay, so kaasa no kaasa saas u kala baxaan. So saa ujeedid kan waa home, add book, register iyo login. Log out waan ku dareynaa in a minute. So inta markaan joogno marka waxaan u baahannahay in aan gelino condition halkan inaan gelino. So condition aan gelinaynaa. So condition kan waxaan ka dhigaynaa. Okay, let's add here. Condition kan waxaan ku dareynaa home ku waa ka daynaynaa. Condition halkan ay ku jirtaa marka. So waxaan leenahay condition kan the auth is authorized kan hadduu sax yahay hadduu true yahay then waxa soo celisaan leenahay add book aan soo celi. Okay, hadduu sax yahay waay. Maxaa kale u baahannahay tanna waxaan u baahannahay kuwan register iyo login kan inay baxaan meesha hadduunan is authorized kan hadduunan sax ahayn macnaha hadduunan jirin. Okay, so just opposite kale waaye. So just waxaan leenahay hadduunan jirin waaye authorized hadduunan ahayn. So haddii aad ku dirta calaamadan hore macnaheedu waxaa waaye hadduunan true ahayn waaye run hadduunan ahayn. Waxaad soo celisaa hadduu false yahay. Did I say here? False hadduu yahay waxaad soo celisaa register iyo login. I'm not sure why error kan igu soo baxaayo must be one. Okay, yeah. Laba waxaa ku jira marka meesha so waxaan u baahannahay parent element inaan sameyno. So intaas la waa. Okay, so haddaan fiirino marka si wax jiraan. Okay, so error badanaa meeshan ka jiro and I'm not sure error kan meesha ka socdo. Okay, use state kan use navigate kan aan jirin. So let's get that use navigate. Factor down, use navigate. Okay, so everything looks good. So hadda saa ujeedaan kuma jiraan register iyo kuma jiro key. Maxaa yeelay token key ku jira meesha. So token waa kaas ku jira. Hadda token haddaan tirtirno on refresh dhahno waxaa soo baxaa register iyo login. Laakiin add book kuma jiro meesha. Kuma ujeedaan wax su'aala so far. Is authorized kan wuxuu naga caawinayaa navigate kan dib aan ka isticmaalana dhimanaa. Is authorized kan wuxuu naga caawinayaa in aan hubino marka hore in uu token ka jiro. Hadduu token ka jiro basically waxa waay run ka dhig waa. Haddii kale false waay. By default waa false unless uu token ka jiro. Use state ka sababta aan isticmaalana maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan hubino marka hore inuu token ka jiro in kale. Wax su'aala. Also issue kala jirto oo hadda haddaan login dhahno fiiri markaan login dhahno meeshan kore oo isbedesho already. Okay, let's go back. Yeah, because navigate uu sameeyay. Haddaan navigate sameynin micnaha ma isbedelayo meeshan kore. That's a small issue waay wax weyn maaha. Kan inaan sameynaa log out kii. Log out aad u simple u yahay intus doonaa. Okay, looks good. wax su'aala. Okay, log out aan ku darno marka si aanan markaas u tirtirin bahalkaas. So log out ka waxa waaye hadduu jiro waaye bahalkan. So hadduu kan jiro inta la ku dareynaa marka log out. Add book aan ku dareynaa. So let's do that. Li parent element u baahan labadooda of course. Link caadi aan ku dareynaa just waxaan ka dhigaynaa function aan gelinaynaa kor. So kan waxa waaye log out. Intana meesha aan ka dhigayna kan aan ka daynaynaa aan ka dhigaynaa on click function caadi ah. Handle logout function lahaan sameynayna. Okay, so labadan parent element u baahan of course. Waxay laba wax markaa geliso meesha JSX ka buuqa kugu furaysaa. Kasa. Kor aan sameynayna function la dhaho handle logout of course.
basically handle log out ku sameynaa waxa waaye cookie meesha ka bixinaya just kanuu soo jiidanaya delete cookie u leeyahay bas intaas leeyahay ama remove cookie kooda authentication kana false ka dhigaya authorization kan or I mean authentication ka kale ka bacdina wuxuu navigate kareenaya login ka intaas that's it intaas leeyahay so login ka log out ku nagu jira haddaan fiirino cookie-ga token ku jirsan waa log out markaa dhahdo it should remove uu ka bixiyey bamuuna refresh karaynin let's see navigate can maybe shaqaynaynin I'm not sure login log out I think navigate ka issue ga let's go back here I'm taking a can use navigate so ماشي لو هاي أنا وايش خلنا navigate to login okay okay login log out مدراية okay عرفنا إن maybe aan hubino inuu jirin in kale malaha kanka bixiska aadi waaye or maybe home ka aadno markuu log up maybe that's easier login fresh aan dhahno si aan hubin inay wax sax yihiin aadina add book markaan log up dhahno okay wuxuu noo dirayaa soo jeedid okay looks good it's not a big deal I think issue wuxuu ka jiro waxa waaye habkan u setup gareeyay habkan u setup gareeyay maxaa la jiray userka marka la hubinayo inuu jiro in kale it's not a big deal okay so hadda uu noo shaqeynayaa saa ujeedid haddii aan login dhahno on isku dayno haddaan rabno inaan aad ku darno kaasaa haddii aan kaba soo qaad halkaan tagnana sidoo kale uu shaqeynayaa laakiin ogow kan hadda maba delete gareyn karna because annaga maana sameynin kan so kan already meesha iskaga jiray so one more thing aan u baahan inaan sameyno add book aan leenahay add bookan inaan wax ka bedelno waa maybe let's see books aan tegaynaa add book okay yeah waxaan u baahanna inaan ku darno heerarkan okay oo qofka oo ismute garay insha Allah qofkan mute garaysnaan heerar aan u baahanna inaan ku darno maxaa yeelay waxaan markii lagu daraayo waa inuu soo jiito qofka gelinayo wixii meesha so let's do that let's go to okay so just sida caadiga awal inta waxaan baahanna inaan import dhahno import cookies from JS cookies inta waxaan leenahay get cookie token kaasa sida daayan sameynayna waa exactly sida kan camal waaya halkan prepared header kan waxaan dhanaan sameyna waa so soo jiidanaynaa inta aan gelinaynaa prepared header prepared header so hadda wuxuu ogyahay markaa in uu qof markuu ku daraayo wax wuxuu hubinayaa marka hore heerarkuu hubinayaa qofku yahay okay so hadda aan fiirino marka let me see inaan ka bedelina u baahana in kale no waxa uma baahan inaan ka bedelno sidiisaan ku shaqeynaa so hadda haddaan ku darno test umuna darin okay I think I know issue meesha jirto aan garanayaa but let me double check authentication required Ujira authentication key so let's clear this
okay error noo soo celiyey wuxuu leeyahay authentication token required okay I think refresh na dhahna maybe that's why hadaan fiirino marka still books okay ma ogolu leeyahay bearer token okay all that stuff sax waaye okay maxaan qabanay marka what did we get wrong add book everything should be good sugan fiiriye componentiga maxaa ka qaldan halka ma qaldana componentiga waxay u baahan tahay nodekeygaan fiirinaya yeah component kana waxa kama qaldana okay so waxaan sameynaynaa server kan soo bilaabana I think server ka issue meesha ka jirto so server kan let's delete books kan aan tirtirno but database already jiro wana user cusub sameyna marka create a user cusub and log out there register Ahmed@gmail.com password 1234567 register looks good registered login logged in okay and I'm hoping the token can jiro to virtual kasa everything looks good the book also on kutarana error so sorry okay so aan hubino marka kan aan hubinaynaa inta books waxaan in sax noogu soo laabanayna hubinaynaa marka hore so let's go to this one console log token error token kaasa ugu muhiimsan inta kala caadi waaye okay so let's do that okay yeah so token kana soo laabanin token ma soo laabanaya so maxaa qaldan cookies get token looks good to me أنا wax qaldan uma jeedi but let me double check nodekeyga because nodekeyga uu shaqeynaya caadi prepared header set authorization authorization kana qaldan capital A waaye kana aan hubino yep bilaa capital A ma shaqeynaya okay so hadda haddaan fiirino it should work not yet qaldan okay token kuli ma jiru leeyahay token ku soo jiidan la ayahay okay cookie get token أستاذ function get token إنه parameter هذا من هنا my because waxaan siinay string aan siinay la dhaho token get token let me double check waxaa ma soo celinaya kan it's not returning function waxaa ma soo celinaya so waxaan u baahanaa intaan dhahno return okay intana return ina dhahnaa this function ka waxaa ma soo celinaya waa u yeerinaa laakiin waxbana ma siinaya so hopefully hadda uu shaqeyn doonaa that's why notes ka u qortay meel ugu qortay notes fara badan okay so header token okay this one header token iska bixino ano kasa book ku darnay okay so book waa edit garan karnaa we could edit new book
new author. Yeah, new book, new author. So we could edit the book. So hadda marka haddii aan log out sameyno, register new user aan sameyno, faaraxii hore camalka soo qaad farax@gmail.com, password siino, let's say 1 2 3 4 5, register uu leeyahay. Hadda muu edit gareyn karaa marka kan, so let's not update it. Update, yeah. And muu edit gareyn karaa kan, ama let's see if you could edit. So 2 aan hore ugu dareynaa, kana 2 ku dar. Inuu edit gareynin waayo, inuu error soo saaro. So fiirin karnaa. Xuley laguma ogolo. I think saasan back endiga uga set up gareeyay. Yeah. So xuley sorry, ma lagu ogolo. So hadduu mid cusub, what happened here? Maana login gareysan. Okay. So login marka hore, sorry. And edit-ka inuu error kala soo saaro una ahayn authorization laguma ogolo haas. Just error dhaha laguma ogolo in edit gareysid. Okay. Leeyahay book not found or unauthorized. Okay. So book laguma ogolo in edit gareysid. So hadda xarana inaan sameyno marka inaan u ogolaanin inuu arko qofka edit-kan unan click gareyn karna rabnaa. Okay. Especially qofka aan book asaga sameynin, tan waa waxyaalo yar waaye on isleeyahay way anfacayaan. So waan in kugu daraya. So taas waxaan u baahanay marka inaan tagno home-ka meeshii buugaagta dhan ku jiraan, inaan soo jiidano waaye. We have to get maxaa la dhihi jiray user-ka. So halkan waxaan kasoo jiidanaynaa import. Waxaan leenahay use get user query inuu yahay. Okay. Inta u sameynayna mid user. Okay. So lastly waxaan sameynaynaa marka waxaan hubinaynaa in uu user-ka uu la mid yahay user-ka ku jiro meesha. So book kasta oon sameyno, so hadda haddii aan books-kan aan cancel log gareyno, let's cancel log books. Cancel log books. Okay. Cancel log aan ku sameynay. Waa idin tusaa book kasta wuxuu leeyahay user ID uu leeyahay. So hadda refresh daan dhahno, marka inta furno. So haddii aan fiirino books-ka, soo jeedid book kasta wuxuu leeyahay information-ka book-ga iyo wuxuu leeyahay user ID. User ID-gaas waxaa waaye qofkii book-ga sameeyey waaye. Tanna back-endiga aan uga set up gareeyay, database-ka wada xiriirinayo. So qofkii sameeyey waaye. User-ka sameeyey waa 1. Hadda haddii aan mid cusub sameyno, let's add new book. Aan ku darno book cusub. Waxaan rabnaa ka dhigaynaa dib ma lahan price-ka number u baahan yahay. Okay, aan ku darno. Haddaan halkan tagno 2 book hadda ku jiro. Haddaa fiirisid user-kooda, user ID-ga way ku kala duwan yihiin. So haddii aan expand gareyno kan waa user ID 2. Kan haddaan expand ku sameyno user ID 1. Okay. So 2 qof aa soo kala geliyay waa labadan. So taas waa waxaan hubinaynaa marka halkan. So books-ka markii aan loop gareyno, waxaan hubinaynaa user-ka iskala book-ga. Ka bacdina waxaan qarinaynaa waxyaalaha edit-ka waxaas aduuna lahayn. Okay. So all we have to do hadda marka waxaa waaye in aan dhahno let's make sure halkan user-kan inuu marka hore empty ku soo baxayo marka hore. So waxaan hubinaynaa inuu empty-gaas uu iska dhaafo. Ka bacdi meeshan hoosaan tegaynaa, waxaan leenahay waxaa hubisaa marka ugu horeyso product-iga edit-keeda waa kana. So this is the edit iyo delete-ka waa kuwana. All right, let's double check that. Edit and delete. Product to price kabacdi. Just right here. Edit intuu ka bilowdaa iyo delete-ka ilaa wuxuu ku eegay halkan. Okay. So kuwaana marka hubinaynaa marka. Haddii uu user-ka, so waxaan leenahay user-ka user.id oo ah halkan user.id hadduu la mid yahay product.user.id hadduu la mid yahay, then tus waay macnaha waxyaalahan tus. So let's go here, closing halkaas. So haddaan dib ugu laabano saa ujeedid
buttonada halkan waa laga arkaa laakiin halkan lagama arko, right? And that's pretty much it. Waxaan ka bixin karnaa URL-kan kore. So hadda haddii aan kan aan dhag siino wuxuu noo diraa halkaas uma baahnin. So click-kaana ka bixinaynaa. So let's remove that. San shaqada u fududeyno. Where's the ending of that? I think in it right here. Kaas waaye. Intaanan bixinin, let's double check ending-keeda. Yeah, it's right here. Okay. So of course wuxuu kala garan karaa sawirka. Iska bixinaynaa. We don't need shaqo kale u gelinaya. So hadda qofka hadduu rabo inuu edit gareyn kara kan, hadduu rabo inuu kan edit gareyn karaa. Hopefully no delete gareyn karaa. There's no issue, yeah. So looks good. So wixii adi aragtid, wixii adi soo geliso baa maamuli kartaa. Wax kale ma maamuli karto markaad. So kan haddaan gelino buugga ugu dambeeyey. Waxaa geli pricing. Okay. Markaas buugga ugu dambeeyey, we could edit. Casharka intana me. Kasa casharka me. Okay. So wax kale ma edit gareyn kartid, wax kale ma hagaajin kartid. Logout markaad dhahdana weli waa ka muuqataa wixii. So we also need to check. Let's see. Yeah. We need to check qofka inuu log in gareysan yahay in kale. So userka taas waxa u baahannahay inaan fiirino marka hore. Logout-ka marka logout-ka inaan ku darno waayo wax oo refresh ku sameynayo wixii. So logout-ka that's why haday yaan u dhahay we need to add one more thing halkan. Waxaan ku daraynaa refresh wax sameynayo. Wax weyn ma ahan, habab kalena waa loo sameyn karaa. But what we could do is waxaan sameyn karnaa inta waxaan leenahay window dot location. waxaan kaloo isticmaali karnaa location-ka, use location isticmaali karnaa daarmo. So tan wuxuu hubinayaa inuu reload sameysmo. So hadda haddii aan login dhahno wakaasa. So haddaan logout dhahno reload u sameynaa soo jeedid. Okay. Wax su'aala, any question? waa idin sheegay halkan ma fududo maanta, so waxyaalo badan qaybo badan kala baxsan waaye. Go ahead. ma la samayn karaa qaab ah oo soo ma jiro in masalan ba user laga qarin karo waxa oo qofka kale wixiis waxaan ahayn naba uusan arkinba? waa la samayn karaa haa. So meeshaan bugaagtan kuwaan maa ka bixin karnaa meesha haddaan rabno. waxaan dhihi karnaa userka bugaagtiis bis ha arko, laakiin kan hadda waxaan ka wadnaa waa library waaye oo dadka soo gelin karaan bugaag camal. So waxaan rabnaa qof kasta inuu arko bugaagta, laakiin uu edit gareyn karo only wixii asaga soo geliya bas. Taas lay ka wadnaa. So hadda login haddaan dhahno markaasa you could only edit waxyaalahaadii waa ka bixin kartaa. waxaan kaloo samayn karnaa profile halkan. wax weyn ma ahan, it's not big deal. Profile-ka basically waxaa samaynaysaa component-ga profile-ka haynaa waa kana RCFE. markaasa tan waxaan hubinaynaa, waxaan soo jiidanaynaa userka. So import waxaan leenahay get user information-ka userka. waxaan kale oo fiirinaynaa and ka bacdina waxaan gelinaynaa meesha waxaan u sameynaynaa route waxaas. So it's not big deal. So inta gudahan gelaynaa waxaan leenahay userka soo jiida informationkiisa, kadibna halkaana u habee wixii u baahnaa. So profile kan waxaan soo jiidanaynaa let's get the registration-ka camal. waxaan uga baahanaa qaybta yarta oo cad bis aan uga baahanaa. ma baahni wax dhan actually. You only need this part. JSX bisa u baahanahay. inta anaga aan style-ka samayn lahayn, just we're gonna create a new one and then formiga oo dhan meesha ka bixinaynaa. formiga dhan meesha ka bixinay inta waxaan leenahay profile. intana waxaan gelinaynaa qofka let's see
احنا clear no ما بهنا خدنا انت حلنا هاي p tag name حلنا هاي user.name انت نسيت كله just email role يحس ما بهنا so انت هذا سمينا كان user كان سمينا نمر كهراء هنقول لنا object empty so انت أصله بس that's all we need I don't know سوء كان دونه but عادنا app.js هنسوي لنا profile كدبنا حاسميننا URL so profile كما وحنقلنا قيبتا أو إنه قفك login إنجليزي أما إنه كبحثي متكلم قلنا so هذا add books أو جينا ما هل كان نقدرنا بس حنقدرنا ماشان أو مركو قفك log out ده لازم قفك login log out كتان قدرنا وقفك profile login كتاكسيو هذا عاد profile كوجو وقفك information كيسوي هدو log out هاي ما information ما صباح ما يروح مصوبة حاجة لكن هدو login ويا قفك login كinformation يصير له هلا profile كله استعماله so log in wuxuu ku jiraa qaybta oo qofka waxaan ka wadaa profile wuxuu ku jiraa qaybta log in ka maxaa yeelay qofka waxaan rabnaa inaan tusno profile-kiisa markuu log in ka bacdi so inta waxaan gelinaynaa just yeah profile is fine kaasa so laakiin waxaan u baahannahay inaan u sameyno private route inaan u sameyno u baahannahay private route automatic kaasa unoo sameeyey private route ku hubinaynaa maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan hubino log out kan u dambaysiinayna of course so kan kor noo mari okay so add book profile so add profile markaan dhagsiino inuu noo soo baxo qofka informationkiisi kaasa profile name Farax email kaasa log haddaan dhahno profile ma jiro wax la dhaho wuxuu noo dirayaa login page-ka login markaan dhahno home page-ku noo dirayaa profile haddaan dhahno kaasuu soo baxaya okay wax su'aala any question okay so intaas waa waxa aan maanta baranayno let's go back to wixii aan ku bilownay waxaan fiirinay wixii yihiin authentication-ka waan fiirinay setup-kiisa slices-ka waan setup galaynay registration login waan sameynay user-ka account inuu samaysto waa siinay private routes-ki waa sameynay oo ah sida profile-ka iyo add book iyo private routes waaye waxaan fiirinay user-ka in cookie-giisa jiro in kale hadduuna jirin cookie-giisa redirect ku sameyn so for example haddii aan tagno add book kabacdina aan ka bixinno token-ka let's remove token kabacdina aan dhahno refresh wuxuu noo diraya login ku noo diraya it's gonna send us to the login okay nooma ogolaanayna wax kale sii sameyno taasna waxaa keenayso private route kan sameyno filekan private route yaa keenayso taas wax su'aala okay so assignment-giina maanta waxaa waaye in isbuucan soo socdo inaad qaataan noteski application-ka noteska hore u haysateen kadibna aad u samaysaan navigation saan camal kadibna navigation-ka u samaysaan u ogolaataan qofka inuu arko noteskiisa bas okay intuuna arkin noteskiisa meesha formka waxaa gelinaysaan waxaa leedahay kabsoo qaad login ama register camal aad leedahay gelin kartaan so whatever adinka rabtaa habka rabtaa u samaysan kartaan tanna waxaa idiin siinaya xoogaha more maxaa la jira freedom inaa wax oo ku xiraa ma jiro oo gooni ah muhiimadda waxaa waaye in u samaysaan navigation waa inuu leeyahay register login home markuu qofka login gareeyana waa in uu leeyahay either add note waa dhihi kartaa haddii kale sida caadiga ah halkan noteku soo gelin kartaa daartid qasama ina add note dhahdo laakiin waa inuu leeyahay profilekiisa just informationkiisa wixiisa soo gelin kartaa iyo logoutna inuu leeyahay taasaa laga rabaa okay tanna waxaa waaye waa adinka habaysanaysaan waxaa samaysanaysaan faalasha inaad samaysaan waaye everything so similar waa projectigan isku yar egyihiin laakiin xoogaa yar kula duwan yihiin oo ah
in navigation-ki inuu kugu jirin hadda adinka u baahantiin inaad samaystaan navigation-ki wax su'aala tokenka anaga ma samaynayna macal mise waa uu ku jiraa barnaamij maxaa la sameynaa tokenka anaga ma ad dhehno maso backend ahaan uu kugu jiraa tokenka hadhow markaan soo geliyo assignmentiga waxaan soo gelinayaa qayb aan ku sharaxayo sidii tokenka usoo jiidan lahaydeen okay iyo waxaan soo gelinayaa maxaa la jiray user informationkiisa wixiisaan soo gelinayaa so backendiga waxay noqonaysaa meel kale aan gelinaynaa so wuxuu ku jirayaa baa la dhaho render let's see intuu ku jiraa renderkan ku jiraa so hadda kuma jiro weli laakiin waan soo gelin doonaa renderkan waa backend waaye waa sida camal xuruurku camal naga caawinaya so hadhowda waxaa lahaanaysaa url noocan camal ah so url-ka noocan u ekaanaysaa ma ahaanayso wax oo local host maaha so saanay u egtaa url saan camal waaye so waxay ahaan doontaa notes dot waxaan camal on render all that so tana waxaa samaynaysaa marka slash notes markaa dhahdo noteski oo dhan aa kusoo baxayso slash register slash login slash wixii oo dhan waxyaalahaas endpointskaasna oo idin kala habeena oo idin soo qoraya meesha waxaa fiirsan read me fileka fiiri waan iisoo gelinaya assignmentiga kabacdina meeshaas aan kugu sharaxaya ogowna haddaad soo geliso wax ogow haddii aad public ka dhigto qof kasta arki karo ogow okay just keep in mind baashan qof kasta isticmaalayo assignmentiga sameynayo so taas hubi insha allah so projectigan oo bookska waxaan ku daray already GitHub ku jira so if you go to GitHub that I did profile-kayga waa arkaysaa both front-endiga iyo back-endiga labadaba waa ku daray waa kana so kan waa kii front-endiga waaye aan share gareeyo kana hadda ka shaqeyle waaye so let's share books front-end kana back-endigana waa ku jira so back-endiga koodkiisa uma baahnidin inaad ogaataan just waa intuu ku jira waa kana so haddaa rabtaa inaad dhexmar martaan is up to you laakiin waa more advanced stuff waaye oo back-end ah kun waxaa ka buuxa maxaa kale intaas le waa bes eedow iskuulka waxaa update ma ku samaysay barnaamijka data kasoo hadlaysa okay so meesha oo student portalkan ka shaqeynayaa so insha allah hopefully more information oo useful halkan soo gelin doonaa waxaan isku dayi doonaa inaan soo geliyo maxaa la jiray casharadii aad ka shaqayseen iyo kuwa aad weli ka shaqaynin all that stuff iyo gradingkii iyo attendancega laftirkiisa waxaan soo gelin doonaa attendancega meeqa maalmood aa misgaraysay meeqa maalood waxaasoo dhan intaa ka arki doontaan all that information iyo batano kale oo for example haddaad su-aal qabta ama aad rabtid inaad wax soo gudbiso waxaasoo dhan iyo talooyinka all that so just inshallah waxaan isku daynaa ka dhiga dark mode so backgroundkan waxoogaa darkan ka dhigaya kana dark waxaan dhan darkan ka dhigaya maybe mustaqbalkana waa flip garayn kartaan but waxoogaha for a while wuxuu noqon doonaa dark mode asaga dhan mustaqbalkan waxaan kusoo diri doonaa button aa ku bedeli kartid yeah inay wax su-aala su-aashii waxaan ka jawaabin su-aashan ustaad qaabka aad oodka u samaysay iyo firebase marka la isticmaalayo maxay kala duwan yihiin waayo saan arkay firebase lagu sameeyo shaqo badan firebase waxa waaye waa system uu Google leeyahay so firebase go to firebase waa backend waxay dhahaan backend as a service camal waaye the only thing waxa waaye free ma ahan so wuxuu ku siinayaa free limit uu ku siinayaa so limitkiisana waa fiican yahay wax badan uu ku siinayaa laakiin unlimited ma ahan laakiin haddaa asaga rabti inaad isticmaashid is very easy just waxaa u baahan tahay inaad samaysid maxaa la dhihi jiray inaad baratid habka loogu xiro React loogu xiro so just look for how to connect Firebase to React taasna waa wax gooni u baran kartid micnaha ani idin baray maaha laakiin gooni u baran kartaa so waa adig goonida u baro
laakiin hubi inaa marka hore casharadan ka soo shaqeyso waxaa markaa dhamaysid iskuulkan dhamaysid dan Firebase aad dhahdaa harto isticmaal just as long as waxa adi micno ku sameynaa ama ku qanacsantaa isticmaalayso isticmaal kartaa laakiin aniga waxaan idin barayaa fundamentals oo ah API si loogu yeero si loo authorize gareeyo waxaasan idin barayaa so fundamentalskaas meel kasta waa u baahan tahay haddaa Firebase isticmaalaysid still waxaa u baahan tahay inaad authorization ka samaysid oo hadda waxaan ka hadlaynaa loginkii waxaas weli waxaa u baahan tahay inaad samaysid state managementkii oo ah Redux-kii waxaas oo dhan all that waa u baahan tahay so okay so week soo socda 10 ma jiraa so 10 kana ugu dambeeyo React oo dhan okay so week soo socda waa project week basna ma ana waa build on project-gan waxaan isticmaalaynaa waxa soo barateen oo dhan HTML CSS JavaScript React maxaa la jiray all that stuff waxa soo barateen oo dhan aad isticmaalaysaan si aad project u dhistaan so project-yaashaasna waan soo diyaarin doonaa so inshallah hopefully next week aan soo diyaarinayaa qaarkoodna dib aan kasoo gelinayaa more information kabacdina team aa loo kala baxaya waana idin socodsiinaa habka waxaas loo kala baxaya isbuuca dambe oo Sunday soo socoto yaa waxaan ka hadlaynaa waxaan sida teamka la iskugu dooranayo sida project-yaasha nooc yihiin waxaas dhan aan ka hadlaynaa iyo siduu u shaqeeyo so more information Sunday soo socota idin siinaa laakiin waa project weyn waaye oo isticmaalaysaan waxaa soo barateen oo dhan so any other question sidoo project-yada admaan oo diraa mise wax aniga aan dooranayno anaa waxa idin keenaa project-yaal aan information-kooda soo diyaariyay so project-ga magaciisa waxyaalo ka kooban yahay qaybo ka kooban yahay waxa laga rabo at the end wuxuu yahay iyo also waxyaalo waxa ku jira stretch ah ama extra ah oo goal hadda rabto inaad gaartid oo dhamaysid way ku jiraan so information-ki project-ga soo diyaarinaya haddaan hayo UI design haddaan hayo waa idiin soo gudbinaya haddaan haynin adinka UI-da la imaanaysaan macnaha habkii style-ka loo sameyn lahaa laakiin anaa project-yaasha idin keenayo adinkana waa ka dooranaysaan so waxaan idin siinayaa form oo Google form ah oo project-yaasha magacooda ku qoran yihiin listiga mid aad ka dooranaysaa iyo and then qof kasta mid ku doortaa group looga dhigaya so hal mar aan isku dardaraya groups so don't worry next week Sunday-da yaan sharaxaynaa waxaas oo dhan marna inaan is hor dhacno waa just waxaan rabnaa un inaan Sunday soo socota aan ka hadalno base project-ga ustaad haddaan front end bartay sidoo kale hadda Node.js barta database ma database yes wuu ku jiraa qaybta ugu dambeysa oo node ka aan baranayna database ku jira so xogaa yar database kan taabanayna so database ka waxaan u baahanaa bas inaan taabano badanaa MySQL aan isticmaalayna and then xogaa yar waxaan intu sameeyaa MySQL sida loo maamulo wax looga bedelo joins waxaas loo sameeyo iyo sida loo sameeyo schema iyo all that fiirnina duleelad so wuu ku dhex jiraa node iyo database ka isku jiraan su'aal kale alright intaas oo kaysiinina insha Allah soo dadaal insha Allah casharkan ma fududo dib ha u dhiganina ha sugina ilaa isbuuca qaybta dambe hadda bilaabo marka idin soo diro insha Allah isla maanta ama berri baan idin soo dirayaa subaxii so insha Allah si ugu dhaqsaha badan iska sii bilaabo si aad wixii issues iyo problems aragtaan aad oo si dhamaystirtaan khayr idin rajayna assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh